بسم الله haddana waxaynu gudageli doonaa su'aalo aad u fara badan baa la soo qoray qof walba nasiibkiisa waan bilaabanaa meeshii ku dhamaadana waan arkanaa insha Allah taala marka su'aasha u horeysa mawduucii Sheekh Abuu Dalxa ka hadlay ayay xiriir leedahay haddii Sheekh furihii aad ii sheegtay aan qaato oo zawjkaygii calooshana u buuxiyo waa sida loo qoray qosolna mataqaana ku soo dhaweeyo isuna udgiyo oo meel kasta mataqaana unsiya barafuun iyo kareemka tira waxa la isku dardaro intii baan isticmaalo soo isagana sidoo kale lagama rabo marka su'aashu waa sida isagana soo sidoo kale lagama rabo alxamdulilah isagana waxaa laga rabaa sida aad sheegtayba sidaasoo kalea laga rabaa diinteenna waa diin cadaalad weeye diinteennu ma aha inuu qofku hal qof la saaro wuxuusan awoodi karin qofna aan laga daayo ma aha shareecadeenna waa shareecad macaan oo takaamul oo dhammaystiran oo xuquuqda qaybinaysa walidaalika baa cabdullaahi bin cabaas wuxuu dhihi jiray sida aan u jeclahay inay xaaskaygu iskugu qurxiso ayaan anigana u jeclahay inaan iskugu qurxiyo saa daraaddeed ma aha gabadhi ood moodo geedka la yidhahdo hohobta hohob mataqanintiinan gabadhi oo maxaa la yidhahdaa cillaanka iyo quruxda iyo hohob aad moodo inaad moodo ninkan inuu hurdo ka soo kacay ama macawis 2000 iyo eberkii lasoo gaday inuu qabo waxaasi sax ma aha waa inuu nadaafad meesha ugu dambaysa macalasaf waa jiraan rag fara badoon dan ka lahayn oo moodaya quruxda in gabadha laga rabo say naftaadu quruxda u rabto say naftaadu carafta u rabto say naftaadu doogga iyo cagaarka u rabto qofkan kale ee kula nool oo bini aadamka ah sankaad leedahay uu leeh indhahaad leedahay buu leeh qalbiga aad leedahay oo kale uu leeh marka inaad u malayso adna aad qashin qub iska dhigto ayadina aad dhado waa dooggaa cagaaran oo waa inay saas ka dhigtaa cadaaladna ma aha diinna ma aha jawaabta waxay noqonaysaa war gabdhaha isu qurxiya oo kilkilaha timaha ku yaalla iska rifa oo maxaa la yidhaahdaa ilkahan cadaya oo barfuun isticmaala oo gabadhu siday iskugu kaa qurxisay adiguna iskugu qurxi xaquna saasu ilahi tabaaraka wa tacaala wallahu aclam jazaak allahu khayr sheekh Abuu Dalxa